دور دقيقة كهر لكن سيدا كلا إن جنرال واسكو فرين هجيتك بلدويني بولو برتو بقولك بقول واسكو فرين وعنقول وتلياشة مع الوسيد من كمدة أوكي وعنقول وكودي بيا برايم سركة وكان برايم زر حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلي وانك سلام يا سكورن ساتاي. الحمد لله ريد جرواس عنها إلى أن نقول ذلك. waan fiicannahay walaalow annaguna runtii waa marka koowaad waa idin mahad celinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahad celinayaa dadaalka aad samayseen iyo geesinimadiina iyo sida aad wadankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysaan waad ku mahadsantihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aad mudan tihiin waana laydinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dawladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa innagoo iswadana haddii ilaah yidhaahdo oo wada shaqaynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaas aad iga gaadhsiin waad igu salaami waan idin garab taagannahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag ha lala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaacaya cadowgana waad ka difaacaysiin aad iyo aad baad noogu mahadsantihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idin ballan qaaday inaan idin garab taagannahay waan idin wada imaan doonaa haddii ilaa yidhahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhammaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa ilahay idankiis waa mahadsantahay ra-iisul wasaare hal mid ayaan kaa codsanayaa meel walba horta waa la xoreeyey nimankaan aad u cabsi badan yihin oo dabadaa looga jiraa aniga jihaadaan nahay waxaan kaa codsanayaa in meelaha la qabtay dadkii dad masaakiinaha joogo oo gargaar lala soo gaaro intaas horta kaa codsanaya qorshaha dawladdu waxaa weeye in degmo kasta iyo tuulo kastoo la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station booliiskii iyo maamulkii oo isku xiran iyo haddii ay dib u heshiisiin deegaanka u baahan yahay in iyadana loo dhammaystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay-adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana haddeertaanaan la fadhiyey dhowr daqiiqo ka hor oo aan arrintaa dhammaysanay waa diyaar amniga mar haddii la sugo waxa ku xigaaya waxaa weeye waa in shaqadaas la qabo dawladday u taallaa annaga iyo hirshabeellaa iska kaashanayna dawladda way ka go-an tahay waana ka shaqaynaynaa ilahay idankiis taas waana lagu ogyahay haddii la yidhahdo shaqadan aad baad u mahadsan tahay ما شاء الله رئيس الوزراء waa mahadsantahay aadana maartay kugu hambaleynaynaa anaga waa ognahay in taageersan tahay in amar la markii lagu doortay ka dhigtay gobolkiidan waxa waaye anaga taariikhdan ugu qoran tahay waxa weyn waa ka sugeynaa mideeda kale dadkaas oo masaakiinta oo baahan dadka xildhibaanka iyo dadkii lamid waxbay gaarsiiyeen waxaana in maartay sheeg dadkaas oo si gurmad degdeg ah ugu soo gaarsiiyay adduunka aakhirada waa ku liibaanaysaa anagu dhiigayna naftaayna ma warnay marka midda kalena adiga aqbaayo waa annagana waa huraynaa ilaahay idankiis hay-adda maaraynta musiibooyinkana waa gaarsiinaynaa cuntooyin baa la soo gaarsiin doonaa insha allah horeyna waxba loo gaarsiiyey haddana waa la soo gaarsiinayaa hawshaas waa ka shaqaynaynaa idina hawshiina qof walba meeshiisa ayaan laga soo dhicin annagana meeshana naga soo dhici maayo haddii ilaha yidhahdo aad baad u mahadsan tihiin guulna waa idin rajaynayaa igu salaama dhammaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee jihaadka ku jira hala igu salaamo رزار وما سنتهاي operation كان هرت حلم باللوني هذه ساك ساعات سوق باللودي دول إلى 7 كيلومتر جارة دركيس اللي عن كهول قلنا إلى 7 ميلود عن كويرناي وحن كبلوني جيس كمل يراهدو الساق شروف للي يراهدو وعدد كبير كوادن 2 كيلومتر وجرت ماشى إذا ماذا كسرين waxay ciidamadaas u tageen meel ay deganaayeen oo dacwo qoran la yiraahdo oo ahayd meel hawda oo beegaga ay ugu xiraayeen oo ciidamadooda ay deganaayeen ayaad u deganaayeen meeshaasna waa ka saarnay kadibna ciidamo kale oo baxda toos uga baxay ayaa waxay tageen deegaan la yiraahdo Dhuumoodle oo ah meel gudaha weyn oo buur hoosteeda oo iyadana ay ku gamban jireen qalabka isgaarsiinta oo dhulkaan oo dhan ay isticmaali jireen oo u yaalay iyadana waa ka carar waa gartay haddana waxaan rabnaa insha Allah taala markii hadda maaragtay hawlahan aan dhameysano inaan qayb meel yiraahdo oo maxkamadda ugu weyn oo labadan gobol dadka ay maaragtay ku xukumi jireen ah inaan wajahno hadii Ilaahay yiraahdo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calaykum السلام gudoomiye waan ku salaamay iska waran see tahay aad iyo aad alxamdulilah waan kaa qaaday aad baan u fiicannaa ra-iisul wasaare boqolkiiba boqol alxamdulilah. degmo baxdo la yidhaahdo oo geesinimo ku caanbaxday oo runtii soomaaliya u horseeday inay guulaysato ayaad guddoomiye ka tahay marka adiguna geesi baa tahay mar haddaad guddoomiye ka tahay haddana aad safka hore ku jirto waan ku hambalyeynayaa number one horta dee waxaa weeye waa mujaahidiin jihaad baad ku jirtaan dhammaantiin allah idinka aqbalo amiin amiin. number two waxaan rabaa inaan aan ballan qaado dowladda soomaaliyeed waa idinla jirtaa garabkiinay taagan tahay dhinaciinay taagan tahay waa ka go-an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka lagaga xoreeyo oo diinta ay kharibeen lagaga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro ummadda soomaaliyeed laga xoreeyo dowladda waa ka go-an tahay waana idin garab taagannahay maasha allah aad iyo aad waad ku mahadsan tihiin naftiina aad huraysaan xoolihiina aad huraysaan shacabka soomaaliyeedna dhammaantiis idinka uu idin fiirinayaa waana idin daba socdaa waa idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay soomaaliya guul baa usoo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol bay inooga dhimanayeen laakiin inagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseed baad ka tihiin waxaana rajaynayaa ilaahay idankiis in soomaaliya si deg dega looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin caddeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir alcadaala waa idinla joogaa kuwo kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilahay idankiis haddii ilahay yihahdo xildhibaan saabirna uu nala joogaa ra-iisul wasaare aad iyo aad uad umahadsan tahay allah ku sharfo runtii inagu dee waxaanu isku xilqaanay inaan maaragtay cadowgaas soo jireenka xukuumaadka ummadda soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna haddii maanta dowladdii soomaaliya ra-iisul wasaarihii waqadka noogu jiro uu ballanqaad noo sameeyeyna aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa haddii aan wax yara dib ugu laabanno deegaamo fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyey ilaaha ku mahadsan ilaa iyo 10 tuulaa saaka la maray oo la xoreeyey marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dowladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyaddooda aad bay u wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin inay maanta la dagaalamaan khawaarijtaas waxay ku faraxsan yihiin in dowladdii soomaaliya oo wasiiradii iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hogaaminayaan marka insha allah moraalka iyo ummaddu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xildhibaan saabir ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo taageerada iyo maxaan ku idhaahdaa shaqada adagoo dowladdu ay halkaan runtiisa ka wado annaguna haddii ilaahayd waan gelin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah oo aan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu guddoomiyuhu kuu sheega weeye insha allahu tacaala waxa dhimanna waa soo afjari doonaa biidni illahi alkariim xildhibaan aad aad mahadsan tahay waxaan rajaynayaa xildhibaanada soomaaliyeed inay kugu daydaan oo waxaad u tahay hormuud adiga hadda waxaan la hadlayay malik oo asagana hiiraan safka hore fadhiya adigana halkaasaad safka hore ku jirtaa waxaan runtii soo jeedinayaa codsanayaa xildhibaanada soomaaliyeed inay ku daysadaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan hormuudnimadaasaan kugu aqaan runtii waanad ku jirtaa waxaan rajaynayaa in ilaahay ajri iyo thawaab kaa siiyo hadda dadkaagiina waad xoranaysaa matalaada dhabtiihi waa midaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan kulligiina waan idin ducaynayaa allah idin barakeeyo allah idin guuleeyo guul baan idin rajaynaya